waxaa shir jaraa kuqabtay hotelka wajir guest house wax garad iyo siyaasiyiin uu hogaaminayay mudanaha laga soo doorto bariga wajir Rashid Qaasim waxayna kaga hadleen shirkooda jaraa'id dhacdooyin amni darro iyo dhibaatooyin ka soo gaaray shacabka deegaanada Qonton Qarsa iyo kuwa kale waxaan la shaqeynaa dawlada Kenya iyo international community aan la shaqeynaa sifa aan iskaga bixin lahayn dadkaanayto waayahanba aan ka dhaxdayna ku jiro oo amaankayna aad u qalay ayaan isku diyayna inaan ka bixino dawladana wada xariirsan insha Allah dawladda waxaad gudub badan ay soo dhisay ayadoo ku tala jirtay in ay joojiyaan shabaab aan konto laga aqoon kahin in axad gudub badan ay soo dhisay ayadoo ka bixinaysa al-shabaab shayalka ay soo bixiyaan waxa kamid ah dad in la qabto security forces ka ay qabtaan special forces ka ay qabtaan oo la haynin maanta meel ay ku suuyin aan la aqoon waxaan rabnaa 8 qof ay hadda maqan 8daas qof waxaan rabnaa in la keeno hadii la aaminsan in ay ku lug lahaayeen in kootina la keeno oo xagga kootiiniga la keeno oo shaqo laga qabto ayaan doonayay waxa kale oo ay ku dhaqaaqeen waayahanayto in ay gubaan kaamayaal baamusturkii dadkii ganacsiyaalka guriyooda iyo kaamiyadkooda inay gubeen magaalada Konton shalay waxa ka dhacday 3 guri in la gubay magaalada qarsan 2 guri laga gubay ayaa dhacday taasna waxa waxaan u aragnaa in xadgudub ay tahay oo in xadgudubkaasi ay xadgudub aad u laabsan xagga bini'aadanimada ay tahay ayaan u aragnaa waxa kale oo dhacday isbuucii soo dhaafay magaalada Konton magaalada Kutulo in nin u shaqeynaa Kenya Power Lighting oo washmanka wardika in lagu dili oo ku dhintay oo ku sababsaday gacanta security forces in Allah ninkii xadgudubka intaan soo bixiyay waxaan rabnaa dawladda inay soo qabato askarka isaga hay oo ina keenta kootiini waayo ninkaas ay to lama ogo inuu ku lug leeyahay ma sheegi karno laakiin waxaan u aragnaa in xadgudub dheer in la suubiyo oo ninkaas ay gacan dawladda dhintay shir saxaafadeedkan ayaa imanaya isbuuc kadib falamni darro ay ku dhinteen 8 ka tirsan laamaha ammaanka iyo qof rayida waxaana ay dawladda ugu baaqeen inaysan dhibaataynin bulshada waqtiyada ay fulinayaan howlaha nabad sugidda ma aha qof aad tuhunsan tahay sharciga dawladda ma qabo ama constitutionka dawladda ma qaba in qof la tuhunsan yahay kaliya wixii uu lahaa iyo martii gurihiisa iyo maalkiisa in la gubo shalay waxa aad u farxmad meesha ka dhacday in ay gubeen qarsa iyo Konton dukaamo la gubay dukaamii adjacent ku ahaa ku dhaganaa ay gubteen oo wixii oo dhan dhulka la simay arintaas ayadoo arin aad u foolxun arintaas waxba ma korinaysa qaabka ay dawladda laamaheeda kala duwan u wadaan baaritaanka waa qaab foolxun qaabkaasna lagu meehela dadweynaha ayaga waxay xaq u leeyihiin kaliya qofka dibka wada inay soo sheegaan waxa dhacday in 8 niman oo askar la dilay 8 nimanka kamidna 6 ay ka imaadeen dhulkaas rag ka imaadayeen oo dadkii reer Kutulo iyo reer Qorxaraar iyo reer Konton ay yihiin dad xanuunsana si gaar ah Keenyaanimadii iyo tarbaja Keenyaanimadii dadka Kenyaanka oo la dilay ka xanuunsanay iyo gaar ahaan dhalinyarada la dilay oo meeshaas ka imaadeen mid labaad oo dhacday dawladda tilaabada ay qaadatay laamaha ammaanka bedelkii dabakicil ahayeen nimankan la soo furmayqay oo meesha dhulka ku jiraan waxay ku soo noqdeen shacabkii inay magaalada dadka isa keenaan oo dadka garaacaan oo dadka dhaxdiisa dad ku toogtaan mid kale oo dhacday shalito in askar haddana ay magaalada Konton dadka isa keeneen oo dukaamo gubeen intaasoo milyan ku jirto dadka ay garaaceen rag lahayna soo qabteen kuwa qaar ay la maqayeen kuwa qaarna ay meel duur ku tuureen 60 kilometer meel ka dheer ay duur ku tuureen oo inay dhinto looga talagalay nasiib asoo nool ma looga tagay qarsa sida oo kale in dadka liisa keenay dhanka kale laamaha ammaanka ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan howlgallada ay ciidamadu ka wadaan deegaanadaasi xasan mukhtaar axmed waayeelka warbaahinta magaalada Wajir.